waddanka Hindiya waxaa soo degtay diyaarad aad iyo aad u weyn nooca loo yaqaan Airbuska intayan diyaaraddu aanay soo degin waxay warbaahintu muddo intaa maalmood dadka la wargelinayay inay diyaaraddaas u iman doonto diyaaraddu waa ay soo degtay waa nooca ugu weyn ee dad badan iyo xamuul badan qaadi kara diyaaradda waxaa lagu magacaabaa almustashfa alطaa'ir isbitaalka duulayay waa isbitaal diyaarada ayaa soo degay diyaaraddu marka ay soo degtay waa diyaarad iyadoo isbitaal ah waxaa ku dhex jira wax walba ee qalab ah agab ah ee dadka lagu daweeyo oo state of the art ah waxaan rabaa kow markaan diyaaradda tilmaamo inaad ila fahamtaan meeshaan ka hadlay inay tahay hindiya hindiya waa meesha dadka ugu badan ee khalqiga ilaahay halka ay joogaan waxay dhahaan allahu aclam meeshay ka keeneen ma ogi nebi aadan baa ku soo horreeyey bay dhaheen halkaas kadibna taranka halkaasuu ku batay khalqi hindiya ah haddana fuqara ah oo waxba aanan haysan oo la yidhi waxaa iman doona isbitaal duulaya maalinkaa oo sidaa ah buu garoonkaas waxaa soo degi doona diyaaraddaasa soo degi doonta dadkana waa la daweyn doonaa free baa lagu daweyn doonaa idinku qiyaasa inta qof ee meesha tegi karta waxaa ku hormaray ra-iisul wasaarihii waagaa joogay baabashta diyaaradda isagaa galay markuu in yar uu dhex galo saa ugu dhex wareegay ayuu wuxuu soo laabtay isagoo mumbahira aad iyo aad madax u haysto la yaaban waxaa qalaba meesha yaal falebooyinka dadka lagu suri lahaa ee qalabka wax lagu qali lahaa dhaqaatiirta diyaarsan raggii doona meesha isugu jira nersiska meesha jooga aad buu la yaabay kadib ayaa waxaa la yidhi booliisku marka waxay isku dayeen inay tadakhul ay sameeyaan maxaa yeelay dadka maalinkaa meesha isugu yimid waxaa laga yaabaa inay halkaa ku dhintaan maxaa yeelay cadadku aad buu u badnaa diyaaradda ayada waxaa iska lahaa nin la dhihi jiray bill robert oo isagu 82dii alidaara alamerikiya ronald reagan la shaqeeyey 87kiina isu soo sharaxay inuu madaxweyne u noqdo laakiin aanu helin oo ahaa presidential candidate-ka ku jiray diyaaradda iyada waxaa iska leh mu'asasad loo yaqaan camaliyat albaraka camaliyat albaraka waa mu'asaso iyadoo masiixi ah tabshiiri ah evangelism ka shaqaysa oo dadka sidii masiixi looga dhigi lahaa ka shaqaysa maalinkaas dadka isugu yimaadeen weli tadakhul badan la sameeyey waxa ay daweeyeen 43,910 qofna qalliin baa lagu sameeyey kadibna xukuumadda waxay codsatay inay meesha ka tagtay maadaama dadku halkaa isugu imanaya aad iyo aad u badan yihiin hadafka diyaaradda meesha soo degtay ayaa wuxuu ahaa siday gabar la leeyahay saciida be ay maqaalaadkeedii ku qortay oo ahayd gabadhii iyadu ugu cod ka dheerayd ictiraadka amaba aad iyo aad ixtijaaj ugu samaysay waxaa 10 daqiiqo ayaa qofka lala fadhiisanaya adigu waxaad doontid sheego halkan ha laga qaladheh inta ha laga daweeyey 10 daqiiqo waxaa laga dhaadhicinayaa un bas inuu ciise uu ilaah yahay inuu yahay son of allah inuu yahay iyo laga dhaadhiciyo walciyaadu billaah waxaa laga dhaadhicinayaa trinitygii saddexdii ilaah waxaa laga dhaadhicinayaa divinity of jesus inuu ilaah yahay inta 10 daqiiqo laga gaarsiinaya kadibna dantaada marka lagu fuliyo suuqa gal baa lagu leeyahay kelimaddeeda halkaasay ka bilaabanaysaa oo macnaheedu u yahay dadka kale way shaqaysanayaan innagana maxaanu samayn doonnaa haddaanu nahay dadka muslimiinta gaar ahaan da'yarta ikhwaani wa akhawaati 1965tii waddanka bangaladesh la leeyahay tirakoob marka lagu sameeyey dadka masiixiyiinta ee deganaa waxay ahaayeen 200,000 oo qof within a short period waqti aad u gaaban 5 milyan buu cadadku isku shareeray waddanka aanu leenahay Indonesia oo ah wadamada dadka muslimiinta oo density uu ka jiro markay taagan tahay populationka waxaa la tilmaamaa inay ka shaqeeyaan
ilaa iyo intaasoo kun oo hay-adood inay ka shaqeeyaan mu'asasat alraxma waashataat mu'asasat duulu intuba waxay halkaa u taagan yihiin u heelan yihiin dadka muslimiinta inay diinkooda marka ay ka didiyaan kadibna meel kale markaa la geeyey bal xitaa madaahibta masiixiga waxaa ka mid ah madhabku leh qofka muslimka diintiisa laga soo saaro teena iyadoo salvationka ay badbaadada ay ku jirtaan yaan la geline meel dhaxa lagaga tago xaasidnimo meesha ka gaareen bay ku leeyihin muasasaadka meesha shaqaynaya waxaa la tilmaamaa ilaa 24,580 mu'asaso oo iyadoo tabshiiri ah tabshiiri markaan leeyahay ujeeddada waxay tahay dadka inay markaa diinka ilaahay ay ka didiyaan ujeeddada waxa ay tahay dadka in masiixi markaa laga dhigo intaa waxaa ka shaqeeya 273,770 qof baa loo shaqaalaysiiyey hawsha inay markaa la yimaadaan ama ay ku qumaan 1,000 maxado oo radio stations iyo tv isugu jirana way shaqeeyaan oo weli dabdabaadkoodu meel kale ay u gudbi karaan adoo meeshan jooga xataa aad heli kartid waxaa la sheegaa muasasaadka inay ku shaqeeyaan 150 milyaar oo lacagta dollarka ah oo lagu bixiyo dadka markaa meesha jooga waxaan xusuustaa mar aan lecture ugu tegay qolyo iyagu 450 gaaraya ee iyagu master's degree iyo PhD diyaarinayay ee ahaa dad masiixiyiin ah baan waxaan weydiiyey halka ay u socdaan waxay yidhahdeen annaga halkaan ku wajahanaa waa xagga Afriqiya meesha idinku gaajada aad u aragtaan masaska ay joogaan libaaxyada ay joogaan oo idinku nafsadiina aad u ogolaan weydeen inaad degtaan halkaasaan kusii soconnaa dadka nin walbaba wuxuu wataa master ama PhD ama medicine buu wataa engineering buu wataa wuxuu rabaa inuu waxaasoo dhanba inuu nooca ma dadka uu ku soo galo yiraahdo anigu waxaan u socdaa kana inaan daweeyo gurigana inaan dhiso laakiin ujeeddo kale wataa waxay marka leeyihiin muasasaadka gaaraya inta hadda aanu tilmaamaynay 20,000 oo muasaso waxa ay u socdaan waxay wataan dabool kale dadka marka dadka caawiya ee waxbarashada siiya ee dadka u gurmada dadka fatahaadyada markay dhacday iyagu marka managementiga sameeya dadka idaarada bara laakiin waxa loo socdaa waa maxay aniga adiga iyo kuwa aanu dhalnay ubadkeen ah ayaa la rabaa in la gaalaysiiyo haddaba ikhwaani haddii arrintu ay khatiir sida u tahay da'yarta maanta ciidda ka badan oo keliya inta maanta hadda meesha fadhiday waan isdhihi kara 97% iyaga ah maxaa u diyaarsan programma hadduu noqon lahaa program lagaga hortegi lahaa dhibka weyn marka ay nagu soo wajahan innaguna waxaan nahay dad wax kale ku mashquulsan wuxuu leeyahay Malik ibn Dinar inna sudur almu'minin taghli bilbir wa sudur almunafiqin taghli bilfujur dadka mu'miniinta qulubtoodu way karaysaa bisabab albirri hanqaltaaga qofka u hanqaltaagay khayrka inuu khayrka uu qabto inuu ummadda u badbaadiyo inuu dadka gacan u fidiyo intuu qaban karo inuu qabto qulubtiisu saas qofka muuminka waa intaa weyn wa inna suduura almunaafiqiin taghli bilfujuur hadday munaafiqiin ay yihiinna faajir waxaan ahayn maadan arkin miya qof saacadaha ugu badan ee uu bixiyo ay tahay midda uu meelaha intuu fariisto uun keliya waxaan faajirnimo ahayn waxaan dulmi ahayn waxaan qatiicati raxim ahayn waxaan ilaahay subxaan wax ilaahay kaa fogeyn wax kale aanu ku hadlay qalyuhu marka waa sidaa haddaba maadaama sida ay tahay fatrada hadda aanu ku jirno ku jirtaan oo ah fatrada aad wax qaban kartaan waa tii safiya ay lahayd camal la qabtay waxa ugu qurux badan kan qofka uu qabto isagoo da'yar maxaa yeelay huna nabiyu sallallahu alayhi wasallam wa shaabun nasha'a fi cibaadati illah markuu nabiga si gaar u amaanayo wuxuu amaanayaa nin dhalinyaro ah oo isagu markaa hadda hana qaada ee da'yar ee maskaxdiisu ay shaqaynayso physically movementigiisu uu shaqaynayo ayaa waxaa la leeyahay hadda hadduu wax qaban lahaa hadda ha qabto horena ha u dhaqaaqo haddaba waxaan tilmaamaynaa marka mas-uuliyadda ina saaran inay tahay mas-uuliyad aad iyo aad u culus walidaalika nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ina baray waxaanu qaban lahayn maxaa yeelay hadda waxaanu ka hadlaynaa markaanu ka hadalno cadad dadka muslimiinta maanta 3% bay caalamka ay ka yihiin waxay aakhir ihsaa'iyaad ay tilmaamaysaa 5 qof walbaba ee meel socdaay mid ayaa muslima halka qolyaha iyagu markaa diimaha kala haysta hinduuska oo dadka ugu badana 15% halka buudiyiinta iyagu ay ka yihiin 7% ay ka yihiin halka ay ka yihiin qolyaha kale ee iyagu markaa
yuhuuddana boqolkiiba laba ay keen yuhuuddana dunyadan kharibtay wax walbaba marka laga sheekay yuhuud baa ka dambaysan leeyahay boqolkiiba laba wey haddaba boqolkiiba 23 inagu maxaanu ciraabanna halkaanu ummaddu kaga jirna ummadda qaanada aanu ku jirnaa maxay tahay in we draw away halkaanu ku jirnaa su'aashaas way su'aasha ina ka jawaabaan u baahana haddaba marka anoo kugu dheereynayn maadaama tarjuma loo baahan yahay waxa aan qaban karnaa laba midun wey individual level qof keligi wuxuu qabto qof uu qabto iyo wuxuu noqon karaa wax collectively oo community based ah in wada jir aan wada qabanno ummadda aan u qabanno laba midun wey waxa laga yaabaa waxa aniga aan qabanayo islaamka aan u qabanayo adaa maanta waxay kaga baahda waxaan macno lahayn dayn baad i weydiisatay amaah baad i weydiisatay wadaad ka lunsantaad i tiri i tusi waxaad u baahan tahay i tiri i sii waxaadan aqoon baad i tiri i bar oo wax adiga si gaar aan kugu qabanayo wuxuu noqon karaa shayga kan shay ummadoo dhan loo qabto sida barnaamijtan dacawiga ah ee meesha ka dhacaysoo kale oo wax ummad hami ummadeed wax ka turjumayo wey labadaa midun wey walidaalika qur-aanka qofkii dib ugu laabtay nebi ilaahi muuse calayhi salaam isagoo ordaya madyan ayuu yimid kadib markii laga soo hadlay qisadii dheerayd فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه marka laga soo hadlay isagoo wax soo dilay soo baxay markuu yimid madyan markuu yimid ayaa waxaan ka hadlaynaa khidmada ah in qofka mu'minka ah wax loo qabto oo ay ka mid tahay islaamka in wax loo qabto ayaa wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala walamma warada ma'a madyan wajada alayhi ummatan min an-nas wajada alayhi ummatan min an-nas yasqun وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير النبي موسى عليه السلام عيم العيال أروريو ونوى الودانتي سأطورانيو ضدكنا سأقود الحوميين وماشي اللي يسكو عيرينيو كدبوا حاركي لو الروح الضمرة لو قبضوت laba hablood oo meel iyagu doc taagan dadka ka fog oo diidaya inay isku juuqjuuqaan halka ciriiriga ay dadku aanay geli karin markuu arkay in laba hablood ee docda taagan xishood iyo sariig iyo meesha uu geeyay ayaan rabin ragga marka inay garabka ku rugtaan buu intuu yimid buu yiri ma khadbakuma shaaniguna muxuu yahay markaas wuxuu yiraahday la nasqi hatta yusdar ar-ri'a inagu ma galno mana waraabsanno ilaa dadka wax aroorayay iyagu qowsaarada ah ilaa waxooda ay ka dhaansadaan oo xoolahooda ka waraabsadaan inagu ma galno halkaasaan istaagaynaa nabi ilaahi muuse calayhi salaam markuu ogaaday labada hablood in waxba ayan qaban karin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fasaqaa lahumaa uu waraabiyey markii uu sameeyey kadib buu halka intuu fariisay geed hoostii buu fariisay isagoo gabdhaha indhaha aan la raacin dan kale aanan ka gelin ilaahay buu gacmaha u ritay uu leeyahay innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir ilaahay oo maanta maadaama aan haynin isagu qax ah meeluu ku herto uu ku hogsaday aanu lahayn meeluu ku hergala aanu lahayn meeluu ka bilaaban aanu lahayn ilaahay maanta adaan kuu baahanahay buu yidhi kow meesha waxaanu ka qaadanaynaa kow nabiyullaahi muuse calayhi salaam markay individual tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu garasiiyey jalla wacala inuu noqdo qof isagu naafic mujtamic wax ku soo kordhiya maxaa yeele maanta haddii labada hablood ee meesha taagan ayuu ka xishoonaya dadka inay saa u dhex galaan labada hablood ka xishoonaya saa u dhex galaan hadduu maanta ku soo dayn lahaa lagaba adduunkoodii inuu dhaawac gaari lahaa laga wax kale inuu gaari lahaa laakiin nabi ilaahi muuse waxaa kalood ku sii dartaa halkaa markaan isidaraad yar aan sameeyo labada gabdhood markuu wax u qabtay kama daba tegin telefoonkooda ma weydiin warqad ma weydiin intee laydinka helaa ma dhihin haddaba wow markaad lagu leeyahay waxbaa la qabtaa munaafacaadka waa loo baahan laakiin macnaheeda maaha gabadhii aad noocan ma wax u qabatid inaad dhahdid facebookkaaga iyo telefoonkaaga iyo howlaha marka gadaal hoos aan ku wadanno xoogaa in la joojiyo wey iyaga xitaa arag xishoodka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu leeyahay tamshi cala istixyaa qur-aanka ma ahayn inuu sifeeyo mishad micnaha maxaa faa'iidada ku jirta maxay tahay faa'iidada ku jirta waxay tahay waxaa la rabaa adiga in la baro waxaa la leeyahay anshaxa waxaa la leeyahay sariigta waxaa la leeyahay xishoodka gabadha muslimadda ilaahay subxaana wa tacaala wuu sifeeyey walidaalika haddii maanta kamera qur'aaniya lagu dultaagi lahaa gabadhaas socodkeeda waxaa soo bixi lahaa wax ilaahay subxaana wa tacaala runtii cajaa'ib uu dhex dhigay
haddaba jidwal markay taagan tahay nabi muuse waxbuu qabtay mujtamac markay taagan tahana waa tii loo yimid atadru muusa wa qawmuhu liyufsiduu fi lardi wadaraka waalihatak iyagoo shakwoonaya markay yimaadeen wuxuu yidhi nabi muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi istaciinuu billahi wasbiruu إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون markay taagan tahay as a community nabi ilaahi muuse calayhi salaam waa tan thawradii sameeyey waa tii fircawn iyo waxa dhexmar waad ogeydeen ummaddu marka xoreeyay qofka muuminka ah ee keligii ah waxbuu qaban karaa innaga shacabkeenan maanta sidan u kala daadsan ee maalinta ka dambaysay waaqac uu sii galayo uu yahay mid markaa ka sii liita waxaan u malaynayaa qof inaga naga midi hadduu si jaad ah seriously u fakaro inuu wax bedeli karo maxaa nabiga sal alla alay wasallam waxaa lagu soo dayey intaasoo malaayiin min annaas xadaaraadka waaga is hardiyey arag tii furus baa jirtay tii kale waxaa jirtay iyadoo markaa hindiyaa jirtay inta luqa ay shaqaynaysa arag inta khalqi oo lunsanayd arag laakiin nabi ilahi maxamed calayhi salaatu wasalaam biwaxyin min allah iyo bifadli min allahi jala wacala iyo waxyiga ilaahay uu soo dejiyey istataaca bifadli illahi jala wacala inuu ummadda u bedelo qofka marka uu yidhaahdo anugu mas-uuliyad baa isaaran waan hinqanaya waan dhaqaaqaya mas-uuliyaddii baan qaban inuu wax bedeli karaan aaminsane walidaalika arag fii nafsi alwaqti qur-aanka uu tilmaamaya haddana marka la tilmaamaya nabiyullahi yuusuf calayhi salaam individually xabsi buu ku jiraa isagoo mutawaadic buu wuxuu leeyahay yaa saaxibay sijin arbaabu mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxidu alqahaar tawxiidkii buu saxayaa qofkii buu la hadlayaa isagoo markaa ku jira dulumaad meel mugdi ah oo xirxiran oo jeebaysan miinaddii ilaahay subxaana wa tacaala saara ma halmaamin markay taagan tahay ummad markay taagan tahana markii boqorkii uu riyooday uu yidhi 7 baqaraatin simaan yaakuluhunna 7 cijaaf wa 7 sumbulaatin khudr wa ukhra yaabisaat uu yidhi war jawaab ha la isiiyo waxaan ku riyooday riyo sidaas oo kale ah nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam wuxuu la yimid khuda iqtisaadiya ee ummadda marka uu ku badbaadiyey wuxuu ku badbaadiyey shacab misr oo waqtigaa joogay wuxuu ku badbaadiyey shacab filistiin maxaa yeele walaalihii markii ay yimaadeen yaa ayuha alcaziizu massana waahlana adur waji'na bibidaacatin musjaatin fawfi lana alkayla watasadaq calayna ina allaha yajzi almutasadiqiin markii ay leeyihiin waxay ahayn dad iyagu qaxa oo yidhi xaggaasaanu shamasanaynaa waxna ma haysano faraha yaguu maran yahay iyagoo ay meesha yimaadeen nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ummaddoo dhan buu badbaadiyey bal zid calaa dalik qur-aanka wuxuu soo xikaayana inuu leeyahay ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim ii dhiib yidhi treasure maanka iga dhig hawshan aniga ii dhiib anaa marka badbaadin doona fakerka ummadda loo fakarayo fardina waan u fakarayaa adigaa inaan wax ku taro ummad ahaanna waan u fakaraya waxay ka mid tahay waxyaabaha loonooga baahan yahay diinkeenna asaasiga ah ee maanta dadku ay ka tageen wey nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka hadli mayno injaazkii dacawiga ahaa ee maanta aanu geedkiisa hoos harsanayno ka hadli maayo maxaa yeele waxaasoo dhan maanta waxaa ka turjumaya xaaladda aanu taagannahay meesha aanu taagannahay saacadda aanu ku jirno xaaladda aanu la falgelayna iyada ka turjumaysa laakiin waxaan tilmaamayaa markii waxyiga uu ku bilaabanayay xadiidkii alimaamu albukhaari fii bad'i alwaxyi xadiidka marka waa tan khadiijo ay leedahay lan yukhziyaka allahu abadan weligii ayay ku hoojin maayo isagoo nabiga sal alla alay slam aad aad u argagaxsan oo leh zammiluunii dathiruunii wa fii riwaaya war hallay duuduuba isagoo aad u argagaxsan bay intay dejisa waxay tihi lan yukhziyaka allahu abadan lagama yaaba in ilahi subxana wa tacala garabkaa uu ka baxo maxay ku cilaysa marka maxaa yeele waxay tihi innaka taxmilu lkal culayskaad xambaartaa wa tukshibu almacduum kana waxba haysan waxbaad siisaa wa tuqri dayf martidana waa soortaa the of all these beautiful qualities له مواصفات كان قروحda badan leh inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu garabkiisa ka baxo suurtagal ma halka marka waxa laga qaadanayaa dadka oo loo gurmado markii fatahaad ay dhacda in markaas xusullada la duubto oo la xagliyo dadka loo gurmado markay ummadda u baahan tahay fakar gaara in marka fakarkii lala yimaado la hindiseeyo la dabagalo la fuliyo markay ummadda u baahan tahay tacliin barnaamij tacliimiya in loo sameeyo markay ummadda u baahan tahay tawciya diiniya barnaamij tawcawiya sida kan oo kale in loo sameeyo markay ummadda u baahan tahay fakarka sidaan oo kale waa fakarka loo baahan yahay inuu duxo fakarka loo baahan yahay way in aan mar walba aan wala nimaadno waana waxa ay samayn jireen haulaai alawaan walidaalika nabiga sala allahu calayh wasalam isaga keliya ma xataa tarbiyatu asaxaaba ridwaanullahi calayhim markii uu yidhi abubakar waa isaga dhaqaaqaya meesha ibnu daqna jawaabtuu sii waa maxay wuxuu yidhi laa takhruj walaa tukhraj mana baxaysa cid ku saari kartana mala leesh
maxay Abu Bakar oo wax kala maaha intii nabiga hadda Khadiija ay ku sheegtay تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف انت بي marka u sheegay wuxuu yiri nin saf muwaasafaad kan leh baad tahay nin bulshada ka dhax muuqdaad tahay nin walba iskoorkiisu aad iyo nin waxa ta iskoorkiisu u sareeyo nin wax koolaa tahay umad wax tari kara inaad iska dhaqaaqadid ma walaalika Abu Bakar arag wuxuu ahaa nin u shaqeeyay in a multiplicity way amalkiisu waligu wuxuu isku day jiray albaab walba oo khayran inuu garaac isku day jiray waana qofka muslimka wax looga baahan yahay walaalika xadiidkii Bukhari nabiga sallallahu alayhi wasallam man minkum ya ma anta sooman ana ya rasuul Allah ma anta ya sadaqa Allah bah ana ya rasuul Allah ويا ما أنت جنازة راعي أنا يا رسول الله ويا سيدة كذا أنا يا رسول الله each and every door الباب والبابا يسقى قراء أنا يا رسول الله ونن ليري امتحان بعد قشي تون ما دال لقى قاضي ما دول بابا أي سكور بو مركب الجلية وأنا واحد لو جاب قفكم ممكن محيل الحوق هذا أبو بكر مركو جنازة الراعي نفس دي سينو واحتريو جنازة دي الله بديني واحتريو أجر إلهي وهليو مركو صام إنه يسقى وحشتريو إلهي يقول دواني مركو صدق والله بحو أنت مركو حنوبها أن قفك إنه سأو تربطون تربطنا شاء إنه كهلنا ومدة أنه تنامي إنه أهم حي وحنوبها أن هاي إن قفك وخيرك تربط هذا بقى إيه مركه قفك إنه نقد قف يسوق نافعة وعندي بقول الله بأن إن يرى ملعسية mindsetك سيفكر يجري ذاتك يهرسل في هذه الأمة أنا ما أنتم حلقة يا بهذا هذه حقوق قبته نوعا ما إن نوعا هذا حقوق قبته إن عليس السارة أم عليس أديو سارتين لكن the other way round سكلي يفكر يجري ابن عباس أرى هذا الكيس وحيري سدح وحيري حتى أفر روح بوشي وحيري سدح أنا إسقفله نين انتو السلام عليكم يري ابن عباس وعليكم السلام انا اسقفلن برينا نراده ورجل وسع لي في المجلس مال بانيمي مال فريسه مال فقاره بوحا ويدر انتو يقدر قبير هل كان فريسه جزاك الله خير انا اسقفلن بير ورجل اغبرت قدماه للتسليم عليه قف لبي سقمدود اي سو بوروبين وجدد سفر كادر وسو قلنا wax kale aan ahayn waani islaama ay taana جزاك الله خير ثانك يو وديه كرابير لكن وحير رابع لا يكافئه عني إلا الله جل وعلا وحاجر مد أفراضه إلهي إنه أبا المركز يموين أنواع بأنا متري كريم واكيكا وحولي رجل بات ليلته تلك ننحال ودن يسرقرقي سيحضي يسرقرقي مشكلة باهي ستا دين بالقول لي هاي كردي بحين لا أي هاي إسلامتا كحنوصا أما قبدي أضيع كحنوسا عيال كيما حنوسا ما لا لقص عوضي دباتة جرتا شيلن اسكفر تماهيو أيوه ليه حلا دم بمركا انتو يسرق الرجل بو هدنا دب من تو يقول الله تمقعيده وحيري ثم جاء لينزل حاجته علي كدينا إيه من إنه أنا إيضا شكت كاو حيري نينك دنتيس أنا إلى صوب بكتي الباب كي صوب جراعي أنا ويديستي لا يكافئه عني إلا الله جل وعلا إذن إلهي هين أو نكا أبال مرين كرتاي مجر تبويل وحرّوا مركينا نقاضو ما أنت هدي أديك التليفون وكوسو دعو يدوح لقوي ديني ولقول لي وح إسي لقول لي هاي وحلقة يا بينا علاش درينتي صومه أنا بقول $1 مركا تورتدين أدوح أوترتي صومه نعم صومه والله هذا ما أركت أنا وحتري ضدك كلا سكري وفكر الجيرين ولذلك وحلا فضيل بن عياض وعليه مصائب وحي وأركي الجيرين ضدك هرى ألا يطرق على بابه أحد من المساكين إنه واجه وبريو إذا عيد الباب كأوسو قراعي هودي أنا لهين وإحنا ويدي سنة ما أنت مصيبة كتيرين جرين ما أنت إيش محل كتيرين جرين مصيبة محل مصيبة ده اللي سيجي واتاي معناه هذا ما إن ما أركتي مصيبة ده سكلا أيتها معناه هذا ما مصيبة سكلا إن أيتها معناه هذا ما طبعا بدون كل يوم قال لكن ضد يوروب جوجا إذا كان لقيه إن التلفون هذا كبر إنسان تلفون هذا وبدلنا النجد مركل لبد الشكل دي من إذا كان من حيسان وسهل إنسان ما شاء الله ما لك كتير إله بقى وصادر كي وصاهل أركيسا 220 ميلو كسو قال كلا شيء وعلى كل قفك سيدا سو كلام ما يسد كيس وياهي أفرتكمي ودير لها إنه ذلك التلفون هذا كبدشتو إيكائي وحسب بردك تاني كلمات مصيبة إيتي من محايا له هبل إيمان ولذلك يقول لي هاي مركو فضل والتلمامين سلف كم إذا أيانين ويمد وعيرني والضنبان كل شيء جاني دب بايسته مركز يصير خصصتني خصصتني بحاجتك جزاك الله خير وما أنت أنا قال صوب بيجتي مياه ما أنا إيتمد ما أنا معيني بدي ما أنا دحي ويدي سنة جزاك الله خيرا ساسي تذكر لي جرين ولذلك مركي اللي ويدي أبو نعيم البليغ
أبو عقيل البليغ عندها ولا يري نيو واحد نوغا ورنتا نينك مروان لليهي marka dadka ay noocan ma dan loo soo raasado ila waa nin madaxa xafiiska loo imanaya wal bal weydiin lagu imanaya xilli nooga waran bal ninkaas uu ahaan jiray markaas yiri ninkaas kaanat raghbatuhu fil in'ami ala al-ghayr akthar min raghbati sahib al-hajati fi an tunaffadh lahu hajatuhu ninka inuu dadka wax taro wuxuu ugu xaglin jiray in ka badan inta qofka danta leh dantiisa in la oofiyo marka uu rabo markaan dan leh danteeda igaga dhaganta laakiin qofka danta aan ka rabo ka waran hadduu aniga igaga daran yahay iga xamaasad badan yahay oo raadinaya inta in ka badan saasay dadka hore ahaan jireen wey waliyaalika nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis ibn Abbas wuxuu leeyahay inna allaha aw inna lillahi ibadan ikhtassahum bin ni'ami yuqirruhum fiha ma badaluha ilahi adama xul ayuu leeyahay si gaar ah u xushay وربي لبيكتي قلديسو لبيكتي يقرهم فيها ودينيا ما بذلوها انت ايضا بحنين الهي ودينيا لكن فاذا هم منعوها هدي اي جوجيان صوما حول تلك النعمه الى الغير انت لغا سو حيوبيو اي قولك لو ديبيا وحي فسير يسا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم حديث خطر سنبا جراء له ما من عبد أنعم الله عليه نعمة مجر قف إلهي أوسية قلد كدمنا أنا النعمة إياذا أهي سيد الربي أن وقف إليسن إلا فقد عرض تلك النعمة للزوال نعمة إياذا وحبا بحيي أهل إزقلي إني مركا إيضا أي تكتو إنا ضل يرى أن نقطو نن كولاه وحقبان كرئنا نقطو النعمة إن إلهي إنجنير وكادق والنعمة إنا دختر نقطي والنعمة إنا داعيا نقطي والنعمة أكثر من ذلك إن إلهي وكادق معلم القرآن والنعمة نعمة إياذا هذا أباهن كو فردق أديك كو أجوغا أباهن لبو مجتمعات كذا لتا أباهن سدح هذا بقى إنه مركي هيكسي إنه ساعة النقد we need to be motivated هركا وإنا جالس سنة وقفك أنه مركا الله نولا هبع عنه نقون ومندنا إنه مركا وكل ولي ومركا أجاد وليته ساسي يهنجن سلف هذه الأمة ولذلك أرق النبي صلى الله عليه وسلم مع ندى مركا وشيء جدير نعم أنا أقول حلقة يابا إن أنا هوشنا نقبل كريم لكن أقول سولية هي ابن القيم رحمة الله عليه لواحة إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر آيات بالأرق وحيري آيات وحلقة قاضنية قفك بن آدمك قف استجننتي مال اسكتاين استارق مجرو أما وحبات بيرين إيساء سيئض مركا تغناء أما وحبات نقسامين إيساء سيئض تبناء سلبا وإيجابا أما هراء أسع أما قضال أسع أما عركاد أما مال وحوم بعد مال بدو تاغنته إني واحد قبل إيساء هم نقضو وح إيمانك أما إسلامك حكوصوا بيرين كرا هذا لم يدوح لك سحيكة الإمام الشافعي ولذلك تعجبني كلمة الرافع في وحي القلم مركو ليها إن الحياة حياتنا نلشنا أدكدرتد إذا لم تزد عليها هذا أدي وحكو كردين كنت أنت زائد عليها هذا ولا يسكون قوني وحلو بها يا مركا بلشدة هالكيبات كجدرتا محاد عرابنتا محاد قبانيسا مزوحة قف يسوق مركا لا يسكو معه أو نوعا ما يسوق وحلو شبتمي وحبا أنا شبين قف يسوق مؤثر أو لا يؤثر يسوق الله سامين لكن ذلك كلا أنا سامين مئة محاد هم يجوا هالكل هالكل جارسيسية وحنو بها أن دائرة إني كبر أروانوي